halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari saacadu waa labadii duhurnimo oo gow ah barnaamijka qodobadan idinkugu hayana waxaa ka mid ah xisbiga ANC oo go'aansaday inay xilka ka qaadaan madaxweyne Jacob Zuma isagana weli wuu is adkaynaya Nigeria waxaa lagu xiray 20 qof oo looga shakisan yahay kooxda Boko Haram Kuuriyada Koonfureed oo xirtay haweenaydii sababta u ahayd fadeexadii musuqmaasuqa ee dalkaasi haraysay qofka magaalada Jigjiga ugu gaaban oo BBC-da u waramay wasiirka dastuurka Soomaaliya oo ka waramaya halka uu marayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mustaqbalka doorashada in qof iyo cod la aada la gaarsiiyana doorashada degmooyinka in la gaarsiiyaa oo shacabka Soomaaliga inuu asaga baaladka u codeeyaa ayaa la gaaraa oo aan loo noqon 51 iyo 4.5 iyo asan loo noqon barnaamijka waxaa soo saartay Bushra Nuur Darawal aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari saacadu waa labadii duhurnimo oo gow ah qodobada barnaamijkan idinkugu hayana waxaa ka mid ah dalka Suuriya magaalada Qowta aafa ayaa ka taagan kumanaan kun oo qof ayaa magaalada ku rafaadsan labada Kuuriya oo waxoogaa isu soo dhawaanshaha uu ka dhex muuqdo balse Mareykanka ayaan weli qanacsanayn booliska Kenya oo lagu eedeynayay inay dad badan laayeen Manchester United oo xalay hilfaha u qaaday kooxda Chelsea Arsenalna ayaan daraa ku dhacday filim nabadda ka hadlaya oo Hargeysa lagu soo bandhigay nabad baa lagu dhaqdaa nabad baa lagu dhistaa nabad baa lagu dhergaayay maxay dhiiladu tartaa nabad barnaamijka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh balse intaasoo dhan aan ka hormariyo warkii dunida Axmed Badar ayaa diyaar la halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com subax wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah qodobada barnaamijkan idinkugu hayana waxaa ka mid ah qoraa u dhashay dalka Sacuudiga ayaa sheegay in masaajidyada ay dalkaasi ku bateen dadkana ay dhib ku qabaan dalka Mareykanka wuxuu buuq ka taagan yahay hubka shacabka ay iibsadaan haddaba hubka la gato sharci ceenkee ah ayaa loo maraa qorigan waxaad ku haysan kartaa oo kaliya ganacsi aad leedahay ama oo ka soo qaado dukaan iyo wixii la mid ah iyo gurigaaga waxa uu isticmaali kartaa ahayn soo ahaa isdifaacid aan ahayn ma jirto gurigaaga haddii cid kugu soo dhacdo waa isku difaaci kartaa haddii ganacsigaaga cid kugu soo dhacdo waa isku difaaci kartaa maxaa laga filan karaa taliyaasha amniga ee dawladdu ay shalay magacawday Puntland oo laga arinsanayo abaaro ku soo foolle wiil Liibiya u tahriibay oo hadda Soomaaliya ku soo laabmay wuxuu ka waramayaa silaca iyo saxariirka uu dalkaasi kula kulmay afar jeer ayaa la gatay afarta jeer ayaa la gatay waxa lagu kala gatay lacagaha qiimaha iyo kala duwan baa lagu kala gatay mar laga bixiyay 5,500 laga bixiyay mar laga bixiyay taana 6,000 iyo taana 250 laga bixiyay iyo mar $4,000 laga bixiyay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa barnaamijka waxaa soo saartay Bushra Nuur Darawal anigu waxaan ahay Cabdirasaaq Catoosh Axmed Badar oo iga soo horjeedana warkii dunida hayno aqriyo halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com subax wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah qodobada barnaamijkan idinkugu hayana waxaa ka mid ah Mareykanka oo ay ka taagan tahay dood la xiriirta xakamaynta hubka dadka loo sharciyeeyo wadamada Iiraan iyo Israa'iil waa ay ka dhex tolan tahay maxaabiis cusub oo Soomaaliya ah
oo liibiya laga soo daynayo nin magaalada garowe ku iibiya maqaayad midhaha geedaha lagu gado oday 90 jir ah oo 4 xaas leh oo ka warramaya jacaylka uu xaasaskiisa u qabo xaasaska waxaan jeclahay isaan hadda markaan weynaaday oon da weynaaday yaan aad u jeclahayba anigoo tabartayda ay liidato isog yaan jeclahay ayagana tabartaasayto haddaaman la igu dhicin haddii ayagana ma xumo ciyaarihii ayaan dabcan meesha ka marnayn barnaamijka anigoo catooshaha idinla socodsiinaya bushrana way noo soo saartay isla bushro iga soo horjeedana warkii haynoo akhriso halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka qodobadan idinkugu hayo waxaa ka mid ah koonfur afrika oo xaaladeeda siyaasadeed aysan degganayn ninkii Zuma ahaana waxaa loo haystaa inuu wakhti uu ku sheego uu isku casilo muqdisho mashaqadii qaraxii Zoobe dadkii ku waxyeeloobay ayaa lacag la gaarsiiyey maxaabiis xabsiyada Itoobiya laga sii daayay iyadoo dalkaasi Itoobiya weli ay ka jirto xaalad deganaan la'aan ah waa kuma madaxa cusub ee maxkamadda cadaaladda dunida anigu waxaan ahay sidayda xaakimnimada ka hor macallin tacliintayda iyo aqoontayda waxaan weligay isku dayaa inaan dadka soo koraya iyo dhallinyaradaba uga faa'iideeyo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka idinkugu hayaa bushra nuur darawal ayaa barnaamijka soo saartay anigoo catooshahna waan idinla socodsiinayaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida duurka maanta ahna waxaa noo warramaya cabdinaasir axmed sheekh bashiir saxan saxo halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeennu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari saacaddu waa 2 duhurnimo oo gow ah qodobada barnaamijkan idinkugu hayana waxaa ka mid ah magaalada quuta ee dalka suuriya aafa ayaa ka taagan inkastoo saacada kooban duqaynta laga joojiyey maxaabiis ka baxsatay garowe oo jaan iyo cirib meelay dhigeen lala yahay dad 100 ka badan oo cudurka jadeecada uu soo ritay magaalada cadaado wiil aad u jecel aaladda instagramka oo maalin walba 200 oo sawir iska qaada beeralayda magaalada goday oo suuq la'aan ka cabanaya beerta annaga ismaamulay meel gelinay cagaf ma haysano gaadiid aan ku soo safrsanana ma haysano meel aan u suuq geyno oo suuq geyn ay beeraha uga furantayna ma jirto marka dib adag baan nagu haysta xag wax soo saar qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin hayaa barnaamijkana waxaa soo saaray Bashiir Maxamed Caato aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh